بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. ما أنت وحان ربا إنان كهضو موضوع ير لكن فائدة بدن حنبارسن. وحان ربا إنان كهضو أخرينتا إيو waxbarashada. runtii ummadahan horumaray waxay ku horumareen waa akhrinta. shakhsigeedana markuu akhriyo wax badan wuxuu fahmaa wax badan, waxaana u kordha garaadkiisa. wuxuu noqdaa shakhsi leh macrifo iyo xikmad iyo aqoon. aqoonta ma ahan wax si simple lagu helo ama wax si fudud lagu helo. waxay u baahan tahay in shakhsigu uu geliyo waqti, dadaal iyo joogteen. inteena badan waxaan dhahnaa anaga ma awoodno inaan joogteeno akhrinta. anaga maalintii ma awoodo inaan akhrino dhowr safxadood ama safxad ama laba safxad wax leeg inaan akhrino ma awoodno. waxaad fiirisaa maalqabeennada adduunka sida Bill Gates oo kale, wuxuu dhahaa maalinkii waxaan akhriyaa hal buug ama wax ka badan. shakhsiga markay akhrintiisa badan tahay wax badan ayuu ogaadaa, waxa uu soo kordhaa waxaan dad kale san aqoon. waxaa jirta qiso aan ka hadlay maalin dhexdaas oo ka hadlaysa wiil Suudaan ah oo asagoo dhalinyaro ah noqday shakhsi bilneer ah. waxaan arkayay maalin dhexdaas soo ka hadlaya kilib yar ama fiideo yar. fiideogaas yar wuxuu ku sharxayay haddii la siiyo $1,000 wuxuu ku qaban lahaa. wuxuu dhahay kunkaas $750 ka mid ah waxaan gelin lahaa waxbarasho, waxbaan ku baran lahaa, koorsooyin ku baran lahaa, buugaan ku soo gadan lahaa oo akhrisan lahaa, waxaan gelin lahaa waxbarasho oo keliya. inteena badan waxaan ku fikri lahayn kunkaas $1 waxaan ku sameyn lahaa ganacsiyaan ku abuuran lahaa. waxa la maal gashto waxa ugu muhiimsan nafsadaada. markaad aqoon barto waxay sameynaysaa horumar. waxaad noqonaysaa shakhsi ka bedelan shakhsiga hore ahaa. waxaad noqonaysaa shakhsi horumarsan, shakhsi maskaxdiisa ku bacday, shakhsi heerka shalay uu joogay heer ka sareeyo istaaga. runtii waxbarashada iyo wax akhrinta waa laba shay oo aad u muhiim u ah. bini'aadamka marka uu dhasho ma ahan qof wax yaqaana, xitaa ma yaqaan sida loo socdo, sida loo hadlo iyo sida dadka loola dhaqmo. laakiin si tartiib ah ayuu wuxuu baranayaa waxyaabahaas oo dhan. marka hore waxaa laga yaabaa inuu afarta ku socdo, macnaha inuu labada lug iyo laba gacmood inuu ku socdo, kadib inuu derbiyada qabsado, kadib inuu socdo laakiin uu ku kufo oo dhaco, marka ugu dambeysana loogisha ku istaago. noloshana waa sidaas oo kale. shakhsiga marka ugu horeyso uu rabo inuu horumar u sameeyo waxaad daruuriyaa inuu wax barto. markaad wax baranayso marka hore waxaad la kulmaysaa culeysyo badan. tusaale maanta waxaad rabtaa inaad bilowdo akhrinta buugaagta. markaad buugga soo qabsato, markaad hal page aad akhrido waxaa laga yaabaa inaad ku caajisto ama inay hurdo ku qabato xitaa, ama inaad is dhahdo ma wadi kari beriyaad sii dhammaystiraya, halkaas inaad ku caajisto. laakiin haddii aad joogtayso oo maanta markay sheegnaata is dhahdo barnaamijkan jooji ama akhrinta jooji, markaas dhahdo aadan nafsa ka yeelin oo aad sii wado maalin ka dambeysa. maanta safxadaad akhriso, beri inaad 2 safxad akhriso, maalinka ku xigta 3 safxad akhriso, sidaas aad ku sii wado. ugu dambeyn waxaad noqonaysaa qof akhriska jecel, qof naftiisa horumarsan tahay, qof gaara heerka uu rabo. marka akhrinta waa shay aad u muhiim u ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam markuu risaaladu soo dhiibayay wax ugu horeeya u dhahay waxay ahayd, ama suuradda ugu horeysa oo lagu soo dejiyay calayhi salaatu wassalaam waxay ahayd iqra bismi rabbika alladii khalaq. marka halkaasaad ka fahmaysaa akhrinta inay tahay shay aad muhiim u ah. markaan iskuullada dhiga jirnay waxaana lagu qori jiray utlubul cilma min almahdi ila alaxad. cilmiga raadiya oo dalba markaad dalataan ilaa iyo intaad ka dhimanaysaan. shakhsiga markuu dhasho ilaa intuu ka dhimanayo waxaa laga rabaa inuu raadiyo cilmiga, waxbarashada, wax walbo naftiisa faa'iido u ah. sidoo kale markaan iskuullada baran jirnay darbiyada iskuulka waxaan ku arki jirnay alcilmu fi sigari kannaqshi cala alxajar. marka insha allahu tacaala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku burinayaa inaad akhriska daa'imtaan si aad wax badan aad u fahantaan, noloshana aad heer sare ka gaartaan. asalaamu calaykum.